hypertension dhiikarku waa mid ka mid ah cudurrada ku badan bulshada. haddii aan adigana daawanayahay aadan qabinna waxaa suuragala in qof qoyskaaga ka mid ama deriskaaga uu la nool yahay. waxaa la qiyaasaa dadka dunida ku nool in 1.28 bilyan oo ka mid ah ay la nool yihiin cudurka dhiikarka, dadkaasi oo da-dooda u dhaxayso 30 ilaa 79 sano. waxaana la sheegaa boqolkiiba 46 ka mid ah dadkaasi aysan iska warhayn inay dhiikar qabaan. haddaba waa maxay dhiikar? dhiikar waa marka heerka cadaadiska dhiigu uu ka bato intii loogu talagalay. cadaadiska dhiiga waxa uu leeyahay ilaa iyo 2 akhris, midka kore amaba hore oo loo yaqaan systolic, kaasi oo ah marka wadnuhu isgaraacayo ama dhiiga uu tuurayo, waxaana loogu talagalay inuu ahaado 120 mm mercury. iyo akhriska labaad ama akhriska hoose ee loo yaqaan diastolic oo lagu qiyaaso ama looga qiyaas qaato cadaadiska dhiiga ee xididada ka jira xilliga uu wadnuhu nasanayo ama inta u dhaxayso 2 dhiig tuuris, waana xilliga uu dhiiga kasoo buuxsamay wadnaha ama uu kusoo shubmayo. waxaa dhiikar ayaad qabtaa qofka la dhihi karaa markii uu dhakhtar ama xirfadle caafimaad oo kale uu 2 maalmood oo kala duwan ka cabiro, kadibna uu akhrinta kore ama systoliga la ekaado ama ka bato 140 mm mercury, akhrinta hoose amaba diastoligana uu la ekaado ama ka bato 90 mm mercury. haddii aan fiirinina waxaa jiro dadka halista ugu jiraahi in ay leeyihiin arrimo dhowra oo ku gadaaman, kuwaasi oo qaarkoodna wax laga bedeli karo ama waxa la yiraahdo modified risk ama modifiable risk factors, kuwaasi oo ay ka mid yihiin isticmaalka cusbada oo xadigeedu badan yahay iyo cunooyinka ay ku badan yihiin dufanka, khaasatan dufanka xoolaha ka yimaada ee animal origin-ka ah. sidoo kaleeto waxaa arrimahaas soo hoosgalaya isticmaalka tubaakada sida sigaarka oo kaleeto oo iyagana khatar badan ku ah caafimaadkaaga guud ahaan. waxaa kale oo iyana meeshaasi ku jira isticmaalka cunooyinka la shiilo iyo jimicsi la-aanta, buurnaanta iyo cayilka. haddii aan fiirino waxaa sidoo kale jiro arrimo kale oo aan adigu waxba ka bedeli karin ama non modifiable risk factors, kuwaasi waxaa ka mida da-da qofka. haddii uu 65 sano gaaro waxa uu halis ugu jiraa inuu ku dhaco cudurka dhiikarka. sidoo kale haddii waalidka ay hore u qabeen, adiguna waxaa ugu jirtaa halis. waxaa kale oo meeshaasi soo gelayo haddii aad qabto cudurrada lala noolaado ee loo yaqaano chronic diseaseska sida cudurka sokorowga ama macaanka diabetic mellitus iyo cudurrada kelyaha ku dhaca ee waqtiga dheer jira ee loo yaqaano chronic kidney disease, kuwaasi oo ah cudurro fara badan. dhammaantood waxa ay laisku dhahaa risk factors, waana waxyaalo ku nugleyn kara in cudurka dhiikarka aa qaado. haddaba ma jiraan calaamada aad ku garan karta in cudurka dhiikarka aa qabto? haddii aan taas fiirinana waxaa cudurkani loo yaqaanaa silent killer ama dilaaga aamusan, mana lahan wax calaamada oo aad isku arki karto. waxaana cudurkan inuu qofka haya la ogaadaa kadib markii uu waxyeello u geysto xubnaha muhiimka ah ee jirka, taasi oo keenta in uu qofku yeesho calaamado xubnahaasi ka yimaada, markaasi oo markii ama uu cisbitaal tago ama uu xanuunsado la ogaado in cudurka dhiikarku yahay waxa dhibaatooyinka caafimaad ee lasoo darsay keenay. balse ma jirto calaamad kale oo ku ogaan karto, waana sababta keenaysa in qofka loo sheego haddii da-diisu ay 40 sano gaartay ama uu leeyahay waxyaalaha u nugleyn kara in cudurkaasi ay ku dhacaan oo kuwii hadda aan soo sheegnay ay ka mid yihiin sida in waalidka ay qabaan ama adigu aa qabto sokorowga amaba cudurrada kelyaha, in ay habboon tahay in aad caafimaadkaaga ka warreyso si joogto ahna aad isu baarto oo cisbitaalka aad tagto sanadkiiba mar ama 2 intii aad wado. haddii aan u gudubnana dhibaatooyinka caafimaad dari ee kaaga imaan kara haddii cudurka dhiikarka aad qabto balse aadan kontroolin, daawadiisiina aadan sida ugu habbooneed qaadan, ayaan isla fiirin doona. dhibaatooyinkaas waa fara badan yihiin. waxaana ugu horeeya dhiikarku waxa uu dhibaatada ugu horeysa u geystaa xididada dhiiga qaada, kadibna waxaa yimaada in haddii xididadaasi ay dhaawacmaan ay noqdaan kuwo adkaada, islamar ahaantan oo ku dhaco xaalad loo yaqaano atherosclerosis, markaasi oo ay xididadu noqdaan xidida adag, kadibna ay dhibaato kasoo gaarto xubnihii ay dhiiga u wadeen sida wadnaha iyo maskaxda. waxaana ka imaan karo cudurro ay kamid yihiin stroga ama faaliga waxa loo yaqaano iyo wadna xanuunka. sidoo kaleeta dhibaatooyinka ka imaada ayaa waxaa kamid ah haddii cadaadiska dhiigaaga uu bato, waxaa la dareemayaa in shaqadii dhiigu qaban lahaa ay yaraatay, islamar ahaantana loo baahan yahay in wadnuhu uu shaqadiisi kordhiyo si dhiiga meel fiican loo gaarsiiyo. taasina waxa ay keenaysaa in wadnuhu isku dayo shaqo uusan awood u lahayn oo dheeraada inuu sameeyo. taasna waxaa ka dhalanaya in wadnahaagu shaqadiisii uu gabo ama uu fariisto, markaasoo loo yaqaano heart failure. sidoo kaleet waxyaalaha ka imaada waxaa kamid ah in xididada u socda xubnaha muhiimka ah ay xirmaan amaba ay yaraadaan, taasi oo keenaysa in xubnihii dhiigii uu gaari waayo, kadibna uu gaaro injury ama dhaawac. xubnahaasi waxaa ugu muhiimsan indhaha, kelyaha iyo maskaxda. haddii maskaxda si gooni
aan u fiirinana haddii ay gaarto arrintani oo dhiiggu uu ka yaraado waxaa ku imaan kara ilaa iyo laba xaaladood. Waa midda ugu horreysay in dhiiggu ka xirmo ama ku furmo iyadoo ay ku xiran tahay hadba nooca uu yahay, taasoo loo yaqaano stroke. Sidoo kaleeto waxaa imaan kara wax loo yaqaana vascular dementia oo ah in xusuus beel nooc xididada lala xiriiriyo oo ka yimaada ugu horreyn dhiig kar kugu dhacay dartiis inay kugu yimaadaan. Haddii aan intaas ugu gudubno, waxaad isweydiinaysaa sidee uga hortagi kartaa cudurka dhiig karka. Sida ugu habboon ee uga hortagi kartaa waa in aad iska yaraysaa waxyaalaha ku nugleyn kara in cudurkan aa qaado ee adiga oo wax ka bedeli karto. Hore usoo sheegnay aan ku niri waa modifiable risk factors. waxaa ka mid ah xaddiga cusbada ee qaadatid oo loo baahan yahay in aysan ka badanin ugu badnaan 2 gram ama 2,000 oo miligram maalintii. Wixii intaasi ka badan waxay ku nugleyn karaan in cudurkan kugu dhaco. Sidoo kale waa inaad iska yaraysaa isticmaalka dufanka noocyadiisa kala duwan. Dufanku waxa uu keenaa dhiig kar, sokor, wax kasta oo cudur ah, mana ku fiicno dufanka tirada badan. Sidoo kale waa in haddii aad leedahay balwadda, sigaar cabidda iyo tubaakada noocyadeeda kala duwan waa inaad iska dhaaftaa, waayo waa halis caafimaad, waxa ayna dhibaato ku tahay nafsadaada iyo noloshaada guud ahaan. Sidoo kale waxaa meeshaan soo hoosgalayo in aad samayso jimicsi kugu filan, in aad maxaa la yiraahdaa buurnaanta iyo cayilka la dirirto. Buurnaanta iyo cayilku waa meel ay kugu soo gambadaan dhammaan cudurrada kala duwan, sidaa daraadeed waxaa ku qasban tahay inaad la dirirto. Haddii aad cudurkan qabto amaba isku aragto ama isaga shakisan, waxaa habboon inaad iska warhayso mar waliba oo aad cisbitaalka tagto. Haddii aad cisbitaal tagto oo lagu soo sheegay inaad cudurkan qabto, haddaba sidee ula noolaan kartaa? Waa ay sahlan tahay in lala noolaado cudurkani haddii aad shuruudihii la rabay soo buuxiso. shuruudahaasina waxaa ka mid ah in cuntadaada ay noqoto cunto caafimaad leh oo aadan cunin cuntadii hore u cuni jirtay, oo aad dhakhtarkaaga weydiisid, isaga ayaana kuu sheegi doona cuntooyinka aad u baahan tahay inaad cunto. Sidoo kale waxaa muhiim ah inaad iska yarayso xaddiga cusbada iyo dufanka sidaan hore usoo sheegnay. Waxaa kale oo laga maarmaana in aad si joogto ah isaga cabirto cadaadiska dhiigga, isla mar ahaantaana aad yeelato baaritaano joogto ah oo cisbitaalka aad booqatid adiga oo dhakhtarkaaga weydiin doono hadba xilliga ku habboon ee ay tahay inaad soo laabato. Waxaa kale oo muhiim ah inaad qaadato daawooyinka dhakhtarka kuu qoro adigoo u qaadanaya sida lagu qoro. Ogow, dhiig karku uma baahna daawo adiga aad qoratid, amaba daawo haddii dhakhtar uu kuu qoray macnaheedu maahan intaad daawadaas iska qaadato in aad weligaa iska isticmaasho. Soomaalidu waxaa caan ku ah intay baxaan oo cisbitaal tagaan atinol loo soo qoro. Marka atinololka loo soo qorana, atinololkaas oo weligiis inta noloshiisa ka dhiman iska isticmaala. Taasina sax maahan, waayo waxaa suuragala in isbedello kugu yimaadaan caafimaad. Daawooyinkaaguna waxa ay la soconayaan hadba isbedeladaas yimaado oo iyagana waa bedelmayaan. sidaa daraadeed waxaa ku qasban tahay inaadan adiga farmashiyaha intaa iska tagto aadan daawo soo qaadanay cisbitaalka markasta ku xirnaatid, daawada dhakhtarkana aad sida uu kugu qoro u qaadatid. intaas ayaanu kusoo koobayna. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.